daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed waa warkii shiila ee aan nooga barateen ee aan laga shaandhayn jirin wax allaale iyo wixii propaganda ah ee ay soo fidiyaan nimanka la yiraahdo jasiiratul waqwaq iyo deegaanada kale ee Soomaalidu ku nooshayba dadka ku adeegta maanta waxaanu ka hadlaynaa barnaamij aad u xasaasi ah oo ah xadhigan joogtada ah ee ummadda lagu baabiyay iyo aafadii iyo masiibadii iyo daadadkii qaaday magaalada ama degmada la yiraahdo Salaxley duufaankii ku dhuftay iyo wixii ka dhashay waa ogeydeen oo dacar buluq oo doraato ama tii ka horeysay aad deganeydeen oo sidii laydiga riixayay halkaa laydigu geeyay Salaxley laba jingadood ayuu ka qaaday roob intii hay-adood ee meesha isugu timi waa ogeydeen naawiya nagaad baa maraysay sanduuqa la dagaalanka aafada ayaa marayay ninkii wasiirka ahaa ee Cabdullaahi Abukar ayaa marayay 500,000 oo dollar oo cashuurtiina idinka laydiga qaaday reer Salaxley markaan leeyahay G36 baa la hadlayaa waa nimanka garxajis la yiraahdo ee 36 arday ah ee gegida soo fadhiistay waa ogeydeen gurmad lixaad leh wasiiru daakhili iyo khaariji iyo gudo iyo madaxtooyo ku sheeg jasiiratul waqwaq ee Somaliland waa la isugu tagay waayo macnay leeyihiin oo waa rag magacyadiina la baxay xoolihiina qaatay dekadihiina qaatay airportadiina qaatay cashuurta idinka qaada bundadana meesha idigu keenay huudheyrka ah ee ageydaan waliba laydigu yadaa qaadan weydaan jeel baa galaysaan aana ku gasheen waana daawanaysaan maanta aan ooyay albaabada ii xidha ayay xaaladiinu maraysaa Salaxley dharka la geeyay ee bundaadka ah meesha daadku qaaday ee guryuhu dumeen ee xoolihii leedeen ee looga baahnaa intaan buuyo raashin nafaqo dawo deegaan baabuur meel caafimaad sanitation meel dadku ay saxarada u aadaan loo diyaariyo ayaa laba bundood oo hudheer loo qaaday waa intii ay ka geeyeen meeshan lagu haysto ee ay ku dulman yihiin marka dhalinyaradii historiga iyo sharciga caalamka oo dhan iyo mid islaambo uu dhigaya inuu qofka bini'aadanka cabiri karayo ra'yigiisa waa wax dimuqraadiyada ka jirto waan ogeynay heegan laantii jasiiratul waqwaq ah oo qabiil maafiya ah ay gacanta ku hayaan waa arkaysa inuu caalamka Mareykanka ayaa White House ka hortiisa lagu gubay qof la qabtay ma jiro ka meesha fadhiya laftiisa ee marba meel carari jiray waa in la soo qaadaa oo sawiradiisa la gubaa qof kale aan la soo eegin waxna aan loo geysan taa xagga dambe ayaan ka sii fasiri doonaa aan idin mariyo sida xaaladdu meeshan ay u socoto iyo waxay tahay Nazi Germany halkii ay maraysay waqtigii Yuhuudda la xirxiray ee kaamamka la geyn jiray ee dharka anthrax-ka lagu buufiyay loo gelin jiray kullee aan jireen bay maraysaa dharkii laga soo siibay dadkii Chinese-ka ah ee duuxyada laga gubayay in dadka loo keeno oo afka laga soo geliyo iyadoo qori lagu wado oo walba lagu khasbo inay ku mahadnaqaan ku dara la yiraahdo taasi mid dadka meesha jooga qabata maaha nimanka tujaarta sheegta ee garxajiska ah ee meesha jooga waxaan leeyahay caarun calaykum bay talaayamantu waa ku ceeboodeen marka waxa kala kacdeen magac madan ummadda waa u muuqateen COVID-19 ayaa reersiinayseen 2 milyan oo dollar oo kaasha iyo qalab ay soo iibiseen ummaddiina waa talkaayda agtaala ee dadka ugu badan ee macaamiisha idii ah ee wax idiga iibsada sida ugu degdega badan leh ayaa isu cadeynaysan aakhira iyo ifxaga raacaysan meel dambe ay xakaminaysan ma jirto Muuse Biixnika la yiraahdo isaga waxaan ku leeyahay xumaantii 30 sanadood iyo 60 sanadood iyo 80 sanadood aad soo wadeen ee aad wadayay kula qaraanaan waa lagu la qaatay ahlan wa sahlan ayaanu kugu xumaanta colaada qaadateen iyo kula qaraanaan waa la soo gaaray nafaqo iyo madaxweyne iyo military iyo maxkamad iyo maaliyad iyo gurmad iyo aafo inta aad isku haynaysaan ma jirto dumar dambo la caayaya ma jiraan wax dambo dheed buudada loo geenaya ma jiraan RRU la isu kaxaysanayo oo rag dambe laga soo taxaabanayo Salaxley iyo meel kale iyo kuwii ood weyne ayaa ka horeeyay ee milyanka lagu xukumay horaa loo doqonta u shaagteeda ku dhufaaday garaweyna gogo u gali halkaas ayay maanta maraysaa xaaladdu meesha aynu taaganahay ummadda meesha deganay waxa weeye waa dulmigii caalamka ugu weynaa halkii ugu foosho xumayd ayuu maanta marayaa intuu ninkaasi yibi 182 qof ayaa laga soo xiray gobolka Sool ama afka aan ku ballaariyay nimanka dhulbaatay la yiraahdo idinka inta idiga xidhan waa ogtihiin boorame qofku afka ma kala qaadi karo iyadu waxa weeyaan waa jeel weyn oo dusha ka banaan oo dadka lagaga soo xidhay afarta beenijihaba cashuurta ugu badan iyo creditka meesha hard currency-ga lacagta ay leedahay waa xoolaha gobolka dadka garxajisku degaan iyo meesha ay degaan nimanka hartigu ka soo baxda iyo beeyada qaadka halka ka dirtaan dekadaha iyo airportada ay leeyihiin cashuurta guriga madaxa la idiga qaado xaradhiigyada inta steerad xoolo lagu iibiyo intiiba waa ka qaawantiin oo hudheyd ayaynu maanta ka maraynaa
xaaladaas waa xaalad aad looga murugoodo oo wax ma aanu ku tilmaamana aynaan garanahaynin haba yaraatee cashuur dambe oo afka la isugu guraya ma jirto dadku wuu soo toosay meesha waxa gacanta ku haya burcad qabiileed ama organized criminals taliska meesha ka taliya jasiiratul waaqwa egas Somaliland laguma tilmaami karo wax maamul ah waa nimanka burcad qabyaaladeedka ah ee hubaysan waa criminals weeye oo well organized ah oo isdiyaariyay nasiib wanaag umada deegaankaas ama gabiile ama boorame ha fadhiyaan nimanka fadhiya ha ahaadaan ee dulmanayaasha deegaankoodii la qaatay ma kuwa garxajiska sheeganaya halka dhex fadhiya ha ahaadaan ama kuwa sool jooga ha ahaadaan waxaanu idigu leenahay ka kaca wake up asxaabil kaafi dambe oo idiga saaraysaa ma jirto ayaamihii u dambeysay ayay maraysaa waxa taa ii daba taala radio al-Cadaala liibaanka la yiraahdo arkayseen inta uu ururiyay riigii uu qoday ee maanta insha Allah laga dhaansan doonayo gobolka Togdheer ama Burco taabka uu ninkaasi geliyay ta uu maanta ka naxay markuu arkay dadkiisii oo bundaad huudheer la dhex dhigayo umada kale ee Soomaaliyeed ee dhan ee uu u gurmado ninkaasi Nobel Prize ayuu ka mutaystay annaga reer ahaan naga mutaystay umada Soomaaliyeedna ka mutaystay waana la siinaya abaalkiisana waa loo ogi waa sawtal carab qofka meelaha iska wareegaya waxla anagu waxba ka dhageysan mayno horaa loo yidhi isku inta birta loo soo siduu go'a ninkii iskii wax ugu qabanayo ugu qabo laakiin ninka waxa uu leeyahay wadada aad qaaday dadkuna ku dira mara istabagala sidaa ha loo wada shaqaysto hadalka bareerka ana ha lagu wada hadlo Muuse Robert Mugabe halkiisii ayaad maanta maraysaa Afrika dhaqare hore u lahayd weeye wax adiga kugu cusub maaha xoog iyo khiyaamo iyo islaamo iyo rag iyo maayaro iyo wasiiro iyo janalaaro beembeera oo dib u naaxaya ma jiraan saxaafigii Ciraaq waa ugu dambeeyay maalintuu cararayo badhamada sii furan ilaa Baqdaad lama soo gelin halka ay ka bilaabatay maanta waa turning point kiisa laxlay waa nuqdati tahwiil waa halkii dadku aanay dib uga soo jeesareenin Hargeysa kuwa jooga waxaan u leenahay ka soo kaca oo raadsada xaqiina iyo xuquuqdiina iyo cashuurtiina ha ku mashquulina waxaan macnaheedu ugu kuwa burca jooga kadaalik kuwa boorama jooga waxaan leenahay kadaalik ceergaabo kadaalik laas aanood kadaalik warnin oo yaanu qabiil gibirkaaga dhex guranin qarnigii 22aad inaga oo gelayna aanu meel fadhino tani maanta awsgeeriyaad ayay fadhidaa waa ogtihiin oo neefka marka awsgeeriyaadka la siiyay ciidka la qalayo kii uu cunay baa hilbihiisa la isku saaraa way kor saarantay suuxin dambe oo la isa suuxinaya way soo dabar gooday waa aragtaan dadkiisa la xalay qiimaha loo yeelay iyo halka la joogay kuwii ka sii horeeyayba dan la iska leeyay ma jirto waa la isku kor shaqaysanaya jin dagaagay oo la soo kaxeeyo oo kuwa waxaan maanta yaala keenay ay yaxtag eel si reeb cid dhageysanaysa way soo dhamaatay dhalinyara ayaa la mustaqbalkeeda iyo masiirkeeda waa lagu soconayaa jidkuna walba waxaanu dileenay aad iyo aad ayuu soo gaabay inta aad ku gaaraysaa aan idii soo gudaanado dhalinyaro anigu halkan la hadli maayo jin dagaagay iyo wixii la maca dhalinyara ayaa la hadlayaa xagga dambena ogeysiis ayaan soo dhigi doonaa aan la hadlayo nimanka la yiraahdo gudida garxajis aariyagaba ku horeeyo gudida garxajis waxaan leenahay nimanka shanta ah ama afarta ah ee laga soo taxaabtay salaxlay idinkay dumadiina saarantay garxajis wuxuu idii doortay may ahayn inaan marba reere kale oo istilay inta baarar soo fadhiisataan iyo maqaaxiyo halka ka tacsiyadaysan ilaahay ha u naxariisto inaad ummadiina u danqataan ayaa la idigu doortay markii buurta la korayay la idima hayo timir laf baa ku jirta la yiri gudoomiyaha suldaanka suldaan cadde gudow waxaan ku leeyahay suldaan cadde gudow 24 saacadood ama 28 saacadood gudahood nimanka la soo taxaabtay ee sharci allaale iyo sharci ay ku xidhay jiray ee ka dhiidhiyay cashuurtoodii oo la guranayo ee huudheerka loo keenay ee iyagu dharka ay leeyihiin gubay ee sida foolxumada iyo gudnimada taariikhda la gashanayo loo soo jiitay waa inaan ku dhawaaqdaan dadka in faraha laga qaado lana soo daayo iyadoo aan baryo ahayn iyo xorriyad ha loo soo celiyo haddii la waayana waa inaan ugu dhawaaqdaan dhalinyaradu inay soo dhaqaaqdo oo waxaan la isdhaafiyo qaar ka xoog weyn baa hore la isu dhaafiyo oo ka manfac badane lama sii eegan karo iyaga intaasaan ku leeyahay ogeysiiska dhammaanna way idin soo eegayaan gudida garxajisay indhihii garxajis dibad joog qolqol joog iyo qurba joogba intaa in ka badan oo la isu sii dul qaadanayaana ma jirto maaweeladii wuu soo dhammaaday yackoogii wuu soo dhammaaday kubaddu xaggiinay taallaa waanu idin sugaynaa gaar baana idigu soo diri doonaa cajiradan meelaha aad ku jirtaan idinka idigu socotaa arrintani in nimanka lagu dhawaaqo ama in laga soo furto sidii Cabdullaahi Khasaariyo looga soo furanayay meesha ku jira raggii ka soo furanayay ragga dhaleen weeye ragga la soo taxaabanaya ee aan dambiga gelin ee taariikhda la gashay huudheerka loo geeyay
waana laydiga fadhiya wuxuu looga la yiraahdaa lagaaga fadhiya buu yiri miska dhalinyarada aan ku soo noqdo arinta miska leeyada ama beenta iyo bugta laydugu haysto idinkoo nool ayaa la doonayaa inay la sugaan bay hadinta ru dhimanayno ay taariikhda inagu kor samaystaan waa duplication waxa meeshan ku nooshay lacagtaadii baa lagu nooliyay waraaqa lacag laga dhigtay baa lagu haystaa cashuurtaadii baa la haystaa ciidankii baa lagu kor haystaa aafada kugu dhacda adiga macna male in lagu xiro ayaad waajib iyo xaq u ah dhalinyaro ka soo kaca waa masiirkii cashuurta waa in la joojiyaa gibirka la bixinayo waa in la joojiyaa ciidanka taani ee dadka lagu korbiilayo Malaysiada waa in la joojiyaa waa ragii rasaasta la dhacayay maalintii ay inqilaabka dhigeen domination systematic domination minority dad tira yar oo fara ku tirisa ayaa doonayay majority-gii cabudiyaan ma shaqeynayso taariikhna kuma shaqeyn cilmina kuma shaqeyn aqlina kuma shaqeyn waxaan leenahay waa ku riyooteen ragii deganaa meesha ceergaaba leeyahay ilaa jigjiga ayaa maanta ilaahay awoodooda istusay wax la maroodigu markuu aakhira tago ayaa awoodiisa la tusaa maanta ayaa la istusay diyaar baa looyay ninka Muuse Biixi leeyahay jasiirada waaqwaaqda madaxweynaha ka ama egas Soomaaliland waa ogtiin halka uu fureynimo ka joogo maalintu aabi kala soo hadlayay Cabdulqaadir Jirde ayaa marxaati ka uu baryaanu ka soo deganaa waxba lama weydiiyo waxba anaguna ma weydiinayno anagoo farmaajo wadnaanu kuugu keenayna Hargeysa ku dhic waayaha iigu keenin weeye ninka meesha jooga waa ninkii aad taqaaneen airportka burco ka soo cararay ilaa Hargeysa ku galay weeye waa ninkii qoxontiyada fadhiyay ka shaqeynayay gudida garxajis in caddo guda madaxda u yahay suldaanku waxa uu leenahay waa la idiga fadhiyaa nimanka sida u qabataan 48 saacadood in lagu soo daayo waayo wax allaale iyo wax lagu haysto aan reernimo ahayn nimanka gudnimada diiday ee ka diraray dhammaan dhalinyarada diyaar ka ahaada gobol wal oo aad joogtaan sidii waxaan ay mar isaga soo afjarlay kibir iyo dibira dhacsi afar qof wadaan oo tuutaha habeenkii iyo galabtii kala bedesha oo tira yar inama qabato khiyaamo dambe oo heegaysan oo halkan ka sii shaqeynaysaana ma jirto dhalinyaro waa ina cududiina muujisaan oo u soo baxdaan afar cisho ma taagnaanayso lug bay ku taagantay ala ridli weeye wada jaaja ala waa imbraaduriya ala saaqay dajaaja waa dawlad laba lugood oo digaaga ku taagan nidaam ama talis ku taagan oo reer ah oo cunsuri ah oo dulmi ah oo tuuga ah oo burcad organize ah oo meel soo wada fadhiisatay oo go'aan ku gaadhay inay sidan wax ku wadaan dhalaanta hayeelina baanu taayid leenahay cashaday taradu eegtay hadaan cidina yeelin ceeb weeye xoorow qoom soo calaacay maanta halkaas waa turning point waalay ka noqon lahayn sida ay isugu xirateen awoodiina iyo cududiina iyo codkiinaba u aragteen dhalinyaro cid dambe oo dadkii halka idin dhigaya oo wax weydiisan yaani jirin testigay ku dhici lahaayeen waa kan aynu maanta kala hadlayno waa nimanka la xidhxidhay nimanka gudida garxajis sheeganaya meesha joogay ama ahiba arintay ku fashilmi lahaayeen nin baa ii warnin kar waa Fariid wuxuu war doqon Fariid ma dhalo ee halkii uu ku fashilmi lahaa baanu gaarin arintay maanta ku fashilmi lahaayeen ee fudiyo faar loogu kala bixi lahaa waa tan dhalinyaro diyaar ka ahaada gobol wal oo aad joogtaan khaasatan kuwa nimanka la hadlayo iyo kuwa kale sool jooga ee la gumeeyay daraawiishta aan jiray iyo kuwa boorama jooga ee la gumeeyay dhammaantiin soo baxa u diyaar gobolooba sidii ay isaga dhicin lahaydeen waxa meeshan jooga ee dhan la isugu dhaafin lahaa waa meesha ugu badan geeyi Soomaali degto oo maamul ka jiro ama talis ka jira ee dad ku xidhmaan waa ogtiin 3,100 international community-ga ayaa qirtay warnaadsiga kaamamkiisii baare inta in leegi ka dhicin 70% inta lagu xidhaa waxa la yiri waa meesha ay ku noolahay egas Soomaaliland ee jasiiratul waaqwaaq la yiraahdo 10 sano u dambeeyay meeshaas waxay isu bedeshay jeel dusha ka furan oo umadu ku xidhan tahay waxyaabaha aku tilukuteenka ahayn ee wax magaratadaasi shuruucda ay idigu soo rogatay iyo distoorka ay sheegaan ay idii qorteen ee qabiilka ay isleekaysay jasiiratul waaqwaaq waxa kamid ah bini aadanka lagu xidho dharbaad gubtay والعالم قفك هدو يسوق يسقوخ أنا ودتك لو وحيلين بانو حتى الدنبي أنا لاين در ما هي علامات عالم اعترافية هي الدنيا وحكي كذا بقى لجوا سياسات ما تكهذا الشيء هي دتك لو حرام ماشي لو كيرا حمر بان عادي أي الله يسكو حرا مرة عرك هو إيج أياد حرتي أما أتقول يا كو جوجلت أي الله يسكو حرا تكريبا وحكش يكتب الله يسكو حرا موسى بلي الشيء أي الله يسكو حرا تيفي دنبا لو خير خطبه موسى سي دينيي او wax xalaaliye wax macaan xurey lahayd ayaadan sii deydin ayaa la isku xiray xarunta TV-gaas ayaad hormartay baa la isku xiraa xarunta dhaqanbiiska ayaa cajiirad ka soo duubtay ayaa la isku xiraa Sheekh Cali nin la yiraahdo isku reernahay ayaa wax ka sheegtay ayaa meesha la isku xiraa
wasaaradda noocaas intaa soo milyan qaadatay baad wax ka sheegtay baa la isku xidhaa taani gurigiisaad hormartay ayaa la isku xidhaa wax allaale iyo wixii qof bini aadana lagu gumayn lahaa ee uu ka kici lahaa waa la idigu sameeyey ee idinka ayaa sida ay ku mahmahaan taliyaanugu haragii dameerka yeeshay waxaanu idin war hayeelina arrintaa hayeelina taladiina idinka ayaa gacanta ku haysta wax idiga hortaaganna ma jirto waxa meesha idin yaalana waa aragtaan inta uu leeyay nimanka waa in laga soo furtaa hadii la waayo dhalinyarada waa inaa ka soo baxdaan gobol walba oo nimanka xaq darrada lagu soo taxaabtay qaar hore ayay ku barteenaysaa ugu hirgashay waa inaa isu soo baxdaan oo halkaa timaadaan dhammaan qurba jooga hawshaa ka socota radio wal cadaala sawt al arab ha laga qayb galo hana la ogaado halka aad joogtaan ku tiri kuteen iyo wada bilaa turxaana ma marayno shin dagaagay oo meel laga soo toosiyo ma waayno qof meel ka soo hadlo oo aanu garanayn waxa uu ka hadlayo waxa ka maqan iyo waxa la isku hayaa ma waayno ku tiri kuteen ugu soo baxsatay ma waayno awsle la muuseeyay ma waayno waxa bir hore ka soo tashano waxaan kamaynaan hadalleen baadeen waxa sugayno haday garanayaan halkan maanta aanu joognay waa meynaan soo gaadhneen dhammaantiin waa mahadsantiin nooli kulanteen